waxaan arki jirnay dad ku tartamayaan social media isticmaalaan ayuu u tartamayaan subscriber-ka hadday tahay xagga Instagram-ka mise TikTok-ka waxaan arki jirnay dadkii u tartami jireen followers-ka iyo dad badan si kusoo jiidata laakiin maalimahan dambe waxaa arkaynaa gabdhihii ku tartamayaan nimanka caanka ah maanta dunida dhan waxay noqotay social media xitaa waa aragteen guryaha maanta waxa dii laga gadanaya waxay tahay internetka hadda gabdhaha ragga u malaynayaan gabdhaha inay ku haystaan nimanka social media isticmaalay si walbay afka uga dhahaan qalbiga 90% dumarka way ku haystaan ragga dadka badan ku xiran yihiin kasoo qaad walaalkeen wax ku dhigla hadda waa aragteen markii hore maxay ahayd maarish video isa soo duubi jireen muuqaale isa soo ismay jireen horumar ayaa la sameeyey horumarkaasna waxaa imaaday jacayl oona qof walba ogyihiin oo ku xiran inay labadaas isjeclaayeen hadda maalimo ma maqno waxaan aragnay gabar cuswan aanan aqaantiin oo maalimahan ku aragteen accountkiisa misbaax markii horeeto sidaas may iskugu dhawaayeen sababta maariisha ayaa ku jirtay jacaylka dhinac u dhig dad waxay ahayn shaqaynayeen soo ma aha hadda maadaama ay ka maqan tahay waxaa soo gashay noloshiisa misbaax si walbay u tahay social media si walbay u tahay qof walba caannimo raadi miyay fiican tahay inaad daawato qofka isla socon jirteen aashaasha ka fiiriso asagoo gabar kale la qoslaayo awimooda su-aashaan markii hore bilaabay dumarka maalimahan waxay ku tartamaan nin caan ah intay ka haynaa ragga badan waxay u malayaan in gabdhahan ay u raadsanayaan jacayl sababta nimanka waxay arkayaan ayay jeclaadaan sida gabdhaha ma aha waxay indhaha ku arkayaan yacni quruxda ayaa soo jiidata maalimo yaraa mayka u marsanee hadda gawar buu rabta caannimo oo rabto balaayin qof inay daawato sida misbaax iska soo dhig sida maariish iska soo dhig adi dhan isoo qurxile raadi meelahii joogaan maalimo kadib adoo lagu raadinayaa adaa arkay saasay u badan yihiin ragga yacni si easy ayaa ku qaadan karta sababta gabdhihii dhan ayaa ku tartamaya hadda waxaa arkaysaa gabdho badan waxaa ku arki doontiin channelkiisa hadda maariish ee booska u tagtay gabdho fara badan ayaa arki doontiin oo kala dugan oo muuqaalo la sameynayaan gabdhihi ayaa ku tartamaya sababta nolosha dhanaa waxay noqotay social media iyo caannimo been ma sheegaya hadda maxay kula tahay maariish gabdhahaasay arkayso ee la soo dhigaayo ku dhadhawaanayo inay ku faraxsan tahay mise jacayl social media adig maxaad ka aaminsan tahay jacayl social media maxaa ka aaminsan tahay miyuu wara dad badan oo arkaysiin lamaanaha social media oo isjecel waxay noo soo bandhigaan waa fake mise maalimo yar ayuu jecelkooda ahaanaya laba beri waxaa la kala noqonaya dad weligiis arag hal maalin hataa shay islacab hadda dadka faanska maariish qurax ku dhiido faan garaynayaan maalimo kadib
laba bilood kaliya sii hadda waxa muuqaalaha la soo dhigaya through telephone iska dhaf laba bilood sii waxa arkaysaa wixii dhan oo kala iloobay sababta dadka markay jecel yihiin say dayal isku soo dhawaada dadka markay jecel yihiin say dayal isku soo dhawaada qofka say dayal isku fahmaysa qofka mar walba waa arkaysa mar walba waa si jeclaanaysa laakiin qofka mar hadduu kala tago dadka mar hadday kala tagaan ay low adduunka kula noolaadaan iska iloob maxaan u dhahay tartankii qurux ku dhigi laada maadaama gabadhi dhan meesha ka tagtay dadka waxay u tartamayaan ma aho jacayl run ah nin aane waxa ka helayso ma leh way yar tahay ragga caanka ah jacayl qadarinayaan because boqolaalan gabdha ayaa dad ku tartamaya inay ka qaaday yani inay ayaga ka raadsadaan nolol maalimo yar ayaa arkaysa hadda qurux kulibiyo maariish muuqaalo telefoon ay noqoto haddii in iska duwo ma u malaynaysa weligood in muuqaalo noocaas la duwi doono oo telefoon waa lagu daalayaa laba bil kadib waxaa arkaysaa life lasoo istaagayo adiga qurux kudhille intii nagu dambeysay yani nolosha social mediaha ayaa wasaas ah hataa saaxiibtinimo ma jirto run way isku faa'iidaystaan dadkan caanka arkayso way isku faa'iidaystaan waa stairs aa ku fulayso noloshaada hadda waxaa arkaysaa gabar saaxiibkeeda mise ninkay qabo cunayso dhehayso sida qurux ku dhiile iyo tirsay cabdi jacaylka gabdhahooda siiyaan isii wax u malinaysiin jacaylka social mediaha inay run tahay dada arkaysa ku kula tagaayo maxaa gabadha oo arkaysa si loo sameeyo anigu maxaa u heli layahay dad badan oo riib xariir run haystaan ayaa arkaysaa jacaylkooda ku burburaya because of social media nimankan oo arkaysan maalimo kadib gabdhaha waxay u bedelayaan sida shaarkooda gabdhaha iyagu ma yaraystaan oo caanka ah lamaanahaas arkayso waxay u imaadeen inay dollar hagaajiyaan adigana xiriirkaada dhan oo soo samaysay ayaa ku burburinaysa commenti igu soo qor jecel social media maxaa ka aaminsan tahay